shalay markii madaxweyne farmaajo uu lahaa waxaan samaynaynaa dimuqraadiyad oo ku darsiga samaynayay siciid wuxuu ahaa ninkii ugu badnaa ugu dagaal adkaa siciid doorasho inuu qabto wuu ku khasbaya haddii aysan doorasho uusan qabin haddana idiin sheegaynaa wixii dalka ka dhaca mas-uuliyaddeeda siciid cabdulaahi baa qaaday habeen dambe waxa uu soo wado waa ka hordegaynaaye hadda ha joojiyo waa beentiis dimuqraadiyad maaha isagu beeg isagaa samaystay cidi lama wadaagto cidi lama ogola waxa uu hameyn dambe soo saari doono waa waxa keeni doona in dalku burbur galo haddana idiin sheegay walaalow 5 sano in doorasho dhacdo waa dastuurkii ku jira waa wax sharci ah haddii la dhihi lahaa 7 sano 10 sano mar walba intii dastuurka ku jira baa horta doorashadu dhacaysaa waana sharci ma aha ceeb cid madax u xirataana ma jirtee markhaati baa ka tihiin oo waa la tartamaayo loo tartamaba hadhow lagu kala adkaadaayo marmar baa hal cod lagu kala adkaanayay ujeedeen oo lagu kala adkaanayay micnaha deganaansho iyo dadku inay dowladooda qoladii soo baxda marka maamulkii soo baxa lala shaqeeyo bay jiri jirtay marka Cabdulaahi oo mar walba 5 sano mar walba dastuurku yahay haddaan laga bedelin 5 sano doorasho dhacaysa haddana waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dowladda xilligeedii waqtigeedii 2 bilood ka dhiman yahay doorasho ma qaban karto lagumana aamini karo doorashadii ha dhacdo cidda markaa soo baxda hadday madaxweynaha jooga tahay iyo hadday qof kale tahayba markaa isagu ha sameeyo waxa la yiraahdo doorashadii markaas isagu iyo dimuqraadiyadii aan qof ahayn oo sharcigeedii lagu tumanayno xeerarkeedii lagu tumanayno wixii la doonaan la sameynayno wax ummadda dhex u tahay markaa ha la qabto justification ma noqon karto oo cududaar ma noqon karto 2 bilood baa dalka ka dhiman wax badiila sideeda dastuurka Puntland 2 qodob buu ogol yahay mid uun waxa weeye lifaaqii lagu soo dhaqmayay in la soo saaro oo dowladii la dhiso dimuqraadiyadii oo la isla ogolayo wada ogolo xilligeedii iyo timekeedii magaciiskeed waxay dilay inay dhacdo taas way dhici weyday waa aniga idin la degmooyin dhanba hadda laba waxay leeyihiin gudoomiye kuwaanba hadda la dhisin oo aan dowladdu tagi karin barnaamijka inta maraya hadda laguma gaari karo doorasho laguma gaari karo dhaliilaha way jirayaan qofku waa bini aadan cidii dambigeeda loo diidimayo oo dambigeeda way qaadanaysaa cidii doonto ha ahaato laakiin waxa soo dhani cududaar u noqon mayaan dowladda waqtigeedii dhamaaday in aysan doorasho qaban annagu waxaan rabnaa in doorasho la qabto sideedana maxaa buuq keenaya maxaa dagaal keenaya wixii ummaddu ku heshiiso dastuurka ku qornaa waxa weeye dowladdan 5 sano baa la doortay waa in doorasho dhacdaa January in madaxweyne yimaada madaxweynahaas qofku doonu noqonaya marka ma aha wax cidile goon u leedahay mana aha wax qof gooni doonayo waa wax ummadda u dhaxa siciidna 2 bilood doorasho kuma qabanayo bilood cid yeelaysa oo ogolaanaysa ma jidho hadii maanta siciid loo ogolaado berito kan ku xigay noqonaysa marka sharciga hal la ilaaliyo dastuurka hal la ilaaliyo doorashada ha dhacdo dhaliilaha waan qaadanaynaa qofkii dhaliishu qaadanaya qofkii dambiilaha oo dambi galay waa joogaya waa la arkaya waa la kala xisaabtamaya ma aha hal qof iyo 2 iyo 3 maaha maxkamadaha jira sharciyad baa jira cidii dambi halkaas dambigeeda la aadaya waxa soo dhan ma bedelayso siciid inuu doorasho qabto siciid doorasho inuu qabto wuu ku khasban yahay haddii aysan doorasho uusan qabin haddana idiin sheegaynaa wixii dalka ka dhaca mas-uuliyaddeeda siciid cabdulaahi baa qaadaya mucaaradku waxay leeyihiin shalay buu siciid wuxuu lahaa cabdulaahi iyo faarax iyo inay dhageystaan baa fiican shalay markii madaxweyne farmaajo uu lahaa waxaan samaynaynaa dimuqraadiyad oo ku darsiga samaynayay siciid wuxuu ahaa ninkii ugu badnaa ugu dagaal adkaa wuxuu ahaa ninkii lahaa yeeli mayno wuxuu ahaa ninkii magacii loo bixiyay ma garanayo dowladdii markaas ragga mucaaradka ahaa ragga ugu waaweyn buu ahaa ragga diidayuu ahaa markuu tagayo ninkii halkan baasuukayaasha magacyada ka qaadanayay buu ahaa oo lahaa iskuma hadlayn karo ninka la yiraahdo farmaajo intii shalay uu diidanaa weeye waxa siciid laga diidaya mana samaynayso raggiina banaanka jooga hadlayo diasporada oo ma samaynayso dictatoriyo in la yiraahdo dimuqraadiyad weeye oo goortaa lagu dhaliilo qofkii ka hor yimaado war waxa ka naga daayay yiraahdo in lagu dhaliilo wax buu doonayaa shalay bay dhacday ka dhacday 2001
400 wiil baa ku dhimatay waad ogeydo faroola dimuqraadiyadan sameeyayo waa laga horyimay waa la dhaliilayo wuu joojiyay waa macay tani waa ka daran tahay oo kuwa hore dhan waa ka daran tahay annaga marka waxaan qabnaa odayaalow 2 bilood baa haray siciid doorasho ha aado habeen dambe waxa uu soo wado waa ka hordegaynaa hadda ha joojiyo waa beentiis dimuqraadiyad maaha isagu beeg isaga samaystay cid lama wadaagto cid lama ogola waxa uu hameen dambe soo saari doono waa waxa keeni doona in dalku burbur galo haddana idin sheegin aad iyo aad u mahadsantihiin